waan salaamayaa shacabka reer Somaliland dhammaantiin. Waa ka xumahay maanta inaan halkan aan imaado anigoo ka hadlaya khilaaf ka jira xisbigii wadani. aad baan uga xumahay oo aan u sheegayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani dhammaan xisbiyahanada xisbiga wadani. waxa leeyahay dameer dabadii nin ka degay meel uga tooboon buu waayay inaanu noqon maanta halkan nimaadno caddayno oo aanu ma garanaysaa hawsha aanu maanta ku jira gallo. waxa weeye wax nooga toomoon meel nooga tooboon baanu weynay. mas-uuliyad baa naga saaran haddaanu nahay taageerayaal, haddaanu nahay xisbiyahanno, haddaanu nahay madaxdii xisbiga. mas-uuliyad baa naga saaran inaanu ilaalino shacbiyadayadii iyo karaamadii dadka inaanu ilaalino. cabdiraxmaan dadka caadigaa waxba kama duwanaa. waxa keliyu ka duwan yahay waa taageeradii aanu siinay 40% shacabka reer Somaliland. mas-uuliyad baa naga saaran inaan taageerada shacabka reer Somaliland aanay noqonin mid loo adeegsado wax iyaga dhibaato ku keenaya, dalka dhibaato ku keenaya, muwaadin kasta dhibaato ku keenaya. maxaan ku idhaahay ragga xisbiga ku jirana gaar u turaya. taasaa nagu kaliftay inaanu marro waddadan aanu maanta ku jirno. gudoomiyuhu muddaanu sugaynay inuu dingaraaro gooyo, argagax gooyo. waanu islahay ma garanaysaa wuu soo kacayaa, u dulqaadanaynay. wuu soo kici waayey. run ahaantii waa ka kici waayey, meel baa goday. waa ka kici waayey. waxaad arkaysaan maanta raggii xisbiga u sarreeyey waad aragtaan waa guddoomiye ku-xigeenkii. hadda wiiggii dhaweytaad sheegayseen waa ka dhinacayga taagan. waad aragtaan xogayihii guud ee xisbiga waa kan shirweynaha lagu doortay. haddii xisbigu uu ahaanayo wax qof markuu doono uu odhanayo hebel baan ka saaray, hebel baan soo geliyey, dee xisbinima ma jirayso. ujeeddadaanu maanta meeshan u joognaa ma aha inaanu xisbi burburinno. waxaanu doonaynaa inaanu badbaadinno xisbiga wadani. waxaanu doonaynaa inaanu badbaadinno dimuqraadiyadda Somaliland. waxaanu doonaynaa inuu xisbiga wadani ahaado xisbi soo saara dadka mustaqbalka dalka hoggaamin doona. dad ay ka soo baxaan dad dhallinyaro ah oo maskaxa leh oo maxaan ku dhahay carbiyo oo soo saara. waxaanu kala dagaalamaynaa inuu noqdo ma garanaysaa meel ma garanaysaa sidii biibitoo kale, sidii dukaan loo isticmaalo, sidii qof wuxuu doonayo. waxyaalaha dalkani u burburay, waxyaalaha loo soo dagaalamay, waxyaalaha ma garanaysaa geeska afrikoonda dhibaatada haysata waxaa ka mid a qof uu warqad iska qorayo, keligii warqad iska qoraya. waxyaalahaanu ka waxaysanahay baa ka mid tahay. waxaa la yaab leh ninbaa wuxuu odhan jiray odayaashu waxay odhan jireen war bele nimaansa arag baa maxaan bele soo joogay. weli ismaan odhan Hargeysa dhexdeeda waxaad arkaysaa xogeyo guud xisbi leeyahay ayaa waxaa lagu eriyey maxaad Soomaaliya ugu jawaabtay. baan la yaabanahay. ismaan odhan rag baa odhan doona maxaad bele odhanaya maxaanu bele soo joogay. annagaa soo joognaa haddaba maanta in Hargeysa dhexdeeda la yidhaaho xogeyo guud waxaad u jawaabtay Soomaaliya aad u jawaabtay. oo weli muxuu ka jawaabay? wuxuu ka jawaabay ma aha wax kale. annaga ayaa madax bannaanoo khayraadka iyaga annagaa u xora. heshiis baanuna ku nahay xisbiye iyo cid kasta iyo golayaasha. heshiiskaa laftirkiisa waxaa ansixiyey oo guddoomiye ka ahaa cabdiraxmaan ciro, guddoomiyaha xisbiga wadani. isagaa ka ahaa. waa heshiiska ansixintaasi waa ansixinta odaygii siilaanya laftirkiisa hadda khiyaamo qaran ugu baalkeysan yahay. xisbi golaheenna waxaa ansixiyey golaheenna wakiilada, odaygaana mas-uulka ahaa. isagu wuxuu ahaa marka maalintii waxaasi dhacayeen guddoomiyaha wakiilada, isla markaana ah guddoomiyaha xisbiga wadani, isla markaana ah musharaxa xisbiga wadani. marka sharciguna wuxuu dhigayaa inaan guddoomiyuhu uusan sharci u gudbin karin baarlamaanka ilaa iyo uu sharciga waafaqsanaado. waan ka xunnahay. waan ka xunnahay ii sheegay. waan ka xunnahay inaanu ma garanaysaa hadalkii odaygii ma garanaysaa madaxweynihii hore ku dhacay ma ahayn afka xisbiga wadani ma ahayn. laga bilaabo maanta wax kasta uu cabdiraxmaan ku hadlo ma aha wax taageerayaasha wadani uu ugu hadlay.
isaga ayaa uga hadlo wax allaale wixii uu khalday waxaanu u mari doonaa nidaamka sharciga waafaqsan ee hay-adaha garsoorku ay ka dhigeen dalka waxaanu u sheegaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga waddani inaanu howl maalmeedka xisbiga sidoodii u soo celin doono inkastoo anigu aan wejigiinla ku cusubahay haddana waxaa jira rag xisbiyahanaa aqoon dheeru leh kuwaasoo maamuli doona kuwaasoo joogay ilaa iyo maalintii somalilan ay dimuqraadiyadda qaadatay waxaanu eegi doonaa wax kasta oo caqabada oo dhacay ilaa iyo xilligii doorashada waxaanu dib u eegi doonaa oo gadaal ka waxayn doonaa hay-adihii la shaqayntu ka dhexaysay xisbiga waddani oo laga qoray aanu qiimayn doonaa wixii laga qoray hay-ad kasta oo aan wax macnaale lagu soo ogin waxaanu dib ula furaynaa xiriirkii shaqo ayaanu dib ula furaynaa xisbigu hadda maanta intayadatan dad badan baa naga dambeeya waxaanu ugu nimi inaanu intan idiin sheegno saxaafadda idiin sheegno dhammaan gobollada dadka jooga oo xisbiga taageersan waxaanu ugu baaqaynaa inay xisbigii waddani uu sidoodii yahay waxaan kaloo u sheegayaa guddoomiyihii cabdiraxmaan ciro inuu sharciga ku soo noqdo dadka reer somalilan abaal bay ku leeyihiin waxay ka dhigeen xildhibaan 12 sannadoodna waxay ka dhigeen guddoomiye baarlamaan waxay ka dhigeen oo xisbigiisii bay soo saareen waxay ka dhigeen musharax boqolkiiba 40 koob iyo 40 loogu codeeyay waa adag tahay muddo yaroo intaa leeg qofka intaa la siiyey ilaa maalintii uu soo galay siyaasadda cabdiraxmaan shacabka reer somalilan waxay siiyeen wax qof dhifa adduunka uu ka soo maray ayay siiyeen waxaan leenahay inuu ku soo noqdo oo arrintaa dib ugu soo noqdo oo uu isu diyaariyo inuu abaalka gudo waxaanu doonaynaa waanu guulaysanay marka si loo eego dad badan baanu helay waxaanu doonaynaa inaanu helno dad ka sii badan oo kursiga ku guulaysano waxaanu u baahannahay dhiig cusub iyo wejiye cusub ujeeddada iyadu anigu ma aha inaan doonayo inaan anigu soo sharaxo aan leeyahay way soo sharaxayaa waxaan doonaynaa inuu xisbigu noqdo xisbi si cadaalada qof kasta muwaadin kasta dhexdiisa uga tartamo isagoo xor ah isagoo aan cadaalad darro ku jirin waxaanu ka cararaynaa in sidii ina muumiseed farta la taago aad baan ugu magaranaysaa idinku bogaadinayaa saxaafadda hawsha ballaaran aad u haysan qaranka waxa weeye maanta waa nagu cusub tahay howlaanu leenahay wixii su-aalaa berrintaanu qabanaynaa waxaan idinka ilaaway wax allaale wixii khaldamay iyo wixii sharci darrada loo maray waxaanu marinaynaa nidaamka xisbiyada nidaamka cadaaladda berrinta ayaanu geyn doonaa hay-adaha garsoolka qaabilsan waana idiin yeeli doonaa waana u soo diyaargaroobi doonaa su-aalihiinna maanta kumaana soo talagelin inaanu su-aala aadna weydiisaan waadna mahadsantihiin adeegga aad ummadoo qabataan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu